maanta oo taariikhu tahay 20kii bishii tobnaad 2020 shiray isugu yimaadeen golaha baarlamaanka Khaatumo iyo golaha wasiirada maamulka Khaatumo waxay soo saareen qodobada hoos ku qoran. waa tacsi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariistii jannaha siiyo madaxweynihii maamulka Khaatumo horena uu ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ilaahay naxariistii jannaha siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed tan Khaatumo qoyskiisa xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo. wada hadalladii maamulka Somaliland iyo maamulka Khaatumo ee socon jiray laga bilaabo maanta waanu hakinay cid nagu meteshaana ma jirto. 3 waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Khaatumo inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay kaga tashadaan arrimahooda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaanu u hakinay inaanu dib uga tashanno annaga iyo dadka yaguba.